السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا ومهتنتهين ما أنت واقميس وأنا لبي طبعا كبيش الله بعد فبراير سنة كلا بدو كن يلحي الله باتنك مقال كان دمانتيس بواحد ربائنا ندي كل وذاقه توم هامان ومدحوين ترامب وأسود دري قبل كمينيسوتا لبطة ضباط كهر ونقابل سنة رماها حدودها هي مسافرينتا أيام مانتا وحاو مقالة مينيابلس وقرد واقعي إن لسوق بقبيي هولقلكي إذا ماذا آيس أي كودين قبل كمينيسوتا قارهان magaalooyinka mataanaha ee St Paul iyo Minneapolis hawshii aan halkan u nimid guul ayaan ka gaarin ayuu yiri waxaanan soo jeediyay in ciidamada laga daabulo gobolka Minnesota madaxweyne Trumpna waa ugu raacay haddaba arrintaasi waxaa soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz waxana uu sheegay in uu soo dhaweynayo ka bixitaanka ciidamada ICE ee gobolka Minnesota laakiin waxa uu yiri waxay nooga tageen dhibaatooyin fara badan haddana waxaan diiradda saari doonaa soo kabashada waxaana si aad ah u amaanay bulshada soo galootiga ah ee ku nool gobolka Minnesota uu yiri waan idin garab taaganahay mar kastaba haddaba arrimahaas ayaan rabaa inaan idin la socodsiiyo balse marka hore saddexdii bilood ee la soo dhaafay ciidamada ICE howlgalla ballaaran inay ka wadeen gobolka Minnesota gaar ahaan magaalooyinka mataanaha ee St Paul iyo Minneapolis ilaa iyo 2 qof ayaa howlgalladaasi dhintay intii ay ciidamadu wadeen Renee Good oo 7 January dhimatay iyo Alex Brady oo kalkaaliye caafimaad ahaa oo 24 bishii January isaguna ciidamada ICE ay dileen Tom Haman madaxweyne Trump ayaa waxa uu soo diray 2 toddobaad ka hor balse uu xaaladda u dajiyo Tom Haman isla markiiba waxa uu bilaabay inuu wada hadal la yeesho maamulka gobolka iyo waliba kuwa magaalooyinka Minneapolis iyo St Paul ciidamada booliska iyo kuwa sheriffka marka wada shaqeyn ayaa halkaasi ka dhalatay taasina waxay sababtay in toddobaadkii la soo dhaafay uu ku dhawaaqo in 3,000 ciidamada ICE ka joogay gobolka Minnesota 700 oo kamid ah laga saarayo talaadii gudoomiyaha gobolka waxa uu xaqiijiyay in uu rajaynayo in Tom Haman uu toddobaadkan uu shir jaraa'id qabto isla markaana uu ka waramo ka bixitaanka ciidamada ICE isla markaana toddobaadka soo socda ay ka wada bixi doonaan marka Tom Haman shirkiisii jaraa'id ayaa la sugayay Tom Haman maanta ayuu shir jaraa'id qabtay waxaana uu si rasmi ah u cadeeyay in howlgalkii ay ciidamada ICE u yimaadeen gobolka Minnesota ay guul ka gaareen waxaana uu sheegay kooxo dambiilayaal dilayaal kuwa wax kufsada kuwa dhac geysta in intaasiba ay qabteen waxaana uu sheegay in kulamadii uu la yeelanayo maamulka gobolka iyo kuwa degmooyinka ay ahaayeen kuwa miradhal ah sidaa darteedna maadaama guul ay ka gaareen howlgalladii ay sameeyeen iyo hawshii ciidamada ICE ay u yimaadeen gobolka Minnesota taasi ay sababayso in ciidamada ICE ay isaga baxaan gobolka Minnesota waa kan marka hore isagoo ka hadlayay guulaha ay ciidamada ICE ay ka gaareen howlgalladii ay ka wadeen gobolka Minnesota iyo hawshii ay u yimaadeen inay guul ka gaareen I'm very pleased to report that this surge operation and our work here with state and local officials to improve coordination and achieve mutual goals as well as our efforts to address issues of concern here on the ground have yielded the successful results we have came here for. The Twin Cities of Minnesota in general are and will continue to be much safer for the communities here because of what we have accomplished under President Trump's leadership. I previously shared with you before I got here. Before I even got here, I met with, I said I was going to meet with the governor, the AG, and the Mayor Fry, Mayor Herr, and I've done all of that. I've also met with various police chiefs and sheriffs. Was the importance of ensuring and maintaining public safety. Overall, we made a lot of progress through extensive engagement, meeting with them and other key stakeholders. And it is expected that those engagements and discussions will continue going forward in order to enhance exchange of information and more coordination. As a result of this surge operation, we have greatly reduced the number of targets for enforcement action, and many criminal aliens have been arrested and taken off the streets, including murderers, sex offenders, national security threats, gang members, and other violent criminals. Tom Haman sidoo kale waxa uu sheegay in maadaama aysan hadda jirin qatar dadweynaha gobolka Minnesota ku nool uu soo jeediyay in ciidamada ICE laga qaado gobolka Minnesota madaxweyne Trumpna arrintaasi uu ka aqbalay waxaana uu sheegay in toddobaadkii la soo dhaafay ka qaaditaanka ama ka bixitaanka ciidamada ICE ee gobolka Minnesota uu bilaabmay toddobaadka soo socdana gabi ahaanba howlgalka la soo gabagabayn doono oo ciidamada ICE ay gobolka Minnesota isaga bixi doonaan waxaana uu xaqiijiyay in howlgallada sugidda amniga iyo waliba qabqabashada dadka sharci darrada ah
ee khatar ku ah ammaanka dadweynaha ay sii socon doonaan. Waxa uu yidhi ciidamada Minnesota laga qaaday ama xarumahoodii ayaa dib loogu celin doonaa ama gobollo kale ayaa loo kala diri doonaa. Waa kan isagoo mar kale arrimahaasi ka hadlayay. With that, and success that has been made arresting public safety threats and other priorities since this surge operation began, as well as the unprecedented levels of coordination we have obtained from state officials and local law enforcement, I have proposed, and President Trump has concurred, that this surge operation conclude. A significant drawdown has already been underway this week and will continue through the next week. We have a lot of work to do across this country to remove public safety risk who shouldn't even be in this country, and to deliver on President Trump's promise for strong border security and mass deportation. Law enforcement officers drawing down from this surge operation will either return to their duty stations or be assigned elsewhere to achieve just that. Tom Hammond sidoo kale waxa uu u mahad celiyay gudoomiyaha gobolka Minnesota. Waxa uu yidhi wax badan iskuma raacsanin mana isku raacsanaan doono, laakiin waxaan isku raacsannahay in mar kastaba muhiim ay tahay dadka qaswadayaasha ah oo rabshadaha ka wada wadooyinka magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul oo qaabka sharci darrada ah u dhaqmaya in wax laga qabto. Waxaan u mahad celiyay gudoomiyaha gobolka maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey oo yiri kooxaha qaswadayaasha ee wadooyinka isbaarooyinka dhiganaya uu nagala shaqeeyay sidii loo qaadi lahaa. taliyaha booliska Minneapolis Brian O'Hare ayuu u mahad celiyay iyo taliyaha sheriffka uu sheegay dhammaantoodba inay nagala shaqeeyeen si xaaladda loo dejiyo isla markaana xaalad caadiya magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul ay ku soo laabtaan. Waxaan ognahay labadii toddobaad ee ugu dambeeyay Tom Hammond uu joogay magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul oo hoggaanka ciidamada ICE loo dhiibay in rabshaduhu ay yaraayeen isla markaana aysan jirin ciidamo fara badan oo magaalooyinka soo galay. Waa kan mar kale Tom Hammond oo u mahad celinayay guud ahaanba maamulka gobolka Minnesota. As part of the de-escalation efforts, I have called on state and local officials these past few weeks to tone down the rhetoric and denounce unlawful activities being conducted by the agitators. We don't have to agree on everything, and we definitely do not. But we all agree that the lawlessness and chaos and disruption that is occurring on the street needs to end. I want to thank Governor Walz for his messages focusing on peace and his support for the Minnesota State Troopers to respond to unlawful situations that put federal officers and the public at risk. I also want to thank Mayor Frey for taking a public stance against agitators setting up barricades that block streets and endanger public safety, and for directing the police to take those roadblocks down. Additionally, I want to thank Police Chief O'Hara, Sheriff Witt, and various other local law enforcement for their responsiveness and efforts to maintain law and order in the streets. We've seen a big change here in the last couple of weeks, and it's all good changes. I'm also pleased to report that we're seeing a notable decrease on unlawful agitator activity here in Minneapolis and overall throughout the state. This is great news for Minnesota communities that have been adversely impacted by the lawlessness and chaos in the street. dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa isaguna shir jaraa'id qabtay. Waxa uu sheegay in si taxadir leh ay u soo dhaweynayaan hadalka ka soo yeeray Trump ninka uu soo diray gobolka Minnesota ee Tom Hammond oo Trump u qaabilsan arrimaha masaafurinta iyo xuduudaha, laakiin waxa uu sheegay in ay nooga tageen dhibaato aad u fara badan. waxa uu sheegay su'aalo fara badan oo aan jawaab loo haynin inay nooga tageen. Waxa uu yiri aaway caruurteeni. Waxa uu sheegay in burbur dhaqaale oo aad u xoogan uu soo gaaray gobolka Minnesota gaar ahaan ganacsiyada yaryar. Marka wuxuu yiri hadda gobolku waxa uu diiradda saarayaa soo kabashada. Sida aan maalmo ka hor sheegay ayuu yiri waxaan diiradda saaraynaa in aan arrimaha dhaqaalaha diiradda saarno, gaar ahaan ganacsiyada yaryar, gaar ahaan ganacsiyada soo galootiga ayaan diiradda saaraynaa ayuu yiri. Maxaa yeelay dadka soo galootiga dhibaato aad u fara badan oo dhaqaale ayaa ka soo gaartay howlgalladii ciidamada ICE ay bilihii ugu dambeeyay ka wadeen gobolka Minnesota. Waxa uu sheegay baaritaanadii dilalkii ciidamada ICE ay geysteen sidoo kale inay socon doonaan, laakiin waxa uu xaqiijiyay in uu soo dhaweynayo hadalka ka soo yeeray Tom Hammond. Waa kan gudoomiyaha gobolka Minnesota oo isaguna shirkiisa jaraa'id ka hadlay. I want to note that the announcement today by Mr. Holman, we are cautiously optimistic, as we've said, and that this surge of untrained, aggressive federal agents are going to leave Minnesota. And I guess they'll go wherever they're going to go. But the fact of the matter is, they left us with deep damage, generational trauma. They left us with economic ruin in some cases. They left us with many unanswered questions. Where are our children? Where and what is the process of the investigations
into those that were responsible for the deaths of Renee and Alex. So while the federal government may move on to whatever next thing they want to do, the state of Minnesota and our administration is unwaveringly focused on the recovery of what they did. And there will be many steps in this process, many answers that we still need to get and will pursue. But as we started earlier this week, one of the first things we can do and what we're focusing on today is what can we start doing on the economic recovery, the damage that has been done to our economy, specifically to small business owners, and even more specifically to immigrant small business owners. dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Minnesota waxa uu ka hadlay oo si toos ah ula hadlay bulshada soo galootiga ah ee ku nool gobolka Minnesota. Waxa uu yiri bulshada soo galootiga ah waxa uu sheegay in ay maqlayaan isla markaana ay arkayaan ayna qiimeynayaan. waxana uu sheegay Minnesota dad soo galooti la'aanteed inaysan Minnesota waxba ahayn. waxa uu yiri hal qarni ka hor dad soo galooti ayaa ka yimid Jarmalka iyo Norway, nus qarni ka hor Monkey community ayaa timid, Soomaalida iyo dadka East Africa ka yimidna sidoo kale waa ay yimaadeen. marka waxa uu yiri anagu bulshada soo galootiga markastaba waan qadarinaynaa, waan soo dhaweynaynaa. gobolka Minnesota dadka soo galootiga la'aantii waxba ma ahan. isagoo sidoo kalena dadka soo galootiga si toos ula hadlayay, isla markaana xitaa dadka Soomaalida soo hadal qaaday. waxa uu yiri bal ka waran inaad ka timid waddankaadii adigoon waxba haysan, halkan aad ka samaysay ganacsi horumarna aad ka samaysay. taasi waxay tahay in riyadii Mareykanka ay dadka soo galootiga ah intooda badan ay gaareen. waxana uu sheegay in Minnesota soo galooti la'aanteed aysan waxba ahayn. isagoo arrimahaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz na waxa uu yiri I want to speak directly to Minnesota's immigrant community, by extension America's immigrant community. We see you, we hear you, we value everything that you bring. We understand here in Minnesota that there is no Minnesota without our immigrant community. And it was the wave of Norwegian and German immigrants a century ago, Hmong immigrants half a century ago, Somali, East African, no matter where you come from. We believe in those words. Give us your tired, your poor, your huddled masses yearning to be breathe free. This is a place you can breathe free. And my message to you is, the majority of Minnesotans and Americans stand on your side. They stand on the side that immigration is the core of who we are and that human decency. marka waa war u fiican dadka ku nool gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalooyinka St. Paul iyo Minneapolis. in toddobaadka soo socda guud ahaanba ciidamadii ICE ee gobolka Minnesota ay isaga bixi doonaan. marka arrimahaasi ayaan rabay inaan idila socodsiiyo. aad iyo aad u mahadsantiin.